مساجد تاريخي Soomaaliya oo dhanna ku ah Afrikana ku ah masaajidka waa aragteen markii asaaskiisii hadda la qoday waxa soo baxay masaajid kale oo hoos ku yaalo dhulka hoostiisa oo runtii noqotay goobo taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed aysan ka warqabin hadda waxa la ii sheegay in goobahaas taariikhiga sidooda lagu ilaalin doono masaajidka si hooseeyna sidiisii loo ilaalin doono shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa taariikhdoodii inay ilaashadaan inay muhiim tahay degmada Shangaanina odayaasheeda iyo bulshada waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay iyagu isku duuban ay diyaar ugu yihiin in masaajidkii taariikhiga ahaa ee Shangaani la soo celiyo annaga ka maamulka gobolkana caasimadda bilicdeedii iyo taariikhdeedii in la soo celiyo waa mid runtii aan ahmiyad weyn siinayno waana u mahadcelinaynaa mar kale ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay goobtan dhagax dhignay waa masaajid waa cibaado goob lagu cibaadeysto waxyaalaha ugu ajar wanaagsanna in laga helo ay tahay marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay isgargaaraan nagala qayb qaataan sidii dib u dhiskii caasimadda dib u soo noqon lahayd gaar ahaan Shangaani oo ah goobihii runtii aadka burburka u gaaray u saameeyay waxaan leenahay dawladda federaalka goobaha ay ku leedahayna inay dayactirto dhisto si bilicdi loo soo celiyo goobaha kale shacabkana sidoo kale ayagana aan kula dardaarmayna inay quruxdii iyo nagala shaqeeyaan magaaladan waa soo noqotay inta dhimanna waa in nooga baahan wadajir iyo midnimo waa mahadsantiin